labaad waxay ahayd quraanka ma waxaa ku jira aayado nasakhan su'aalaha caynkaasa marka laga jawaabayo waxaa lagu qasban yahay in loo laabto qur'aanku naskhi muxuu u yaqaan naskhi muxuu qur'aanku u yaqaan haddaan ku idhaahdo maxamed daahirow nuskho ii soo iibi ma buug faaruqa ii keenaysaa mase mid wax ku qoran yihiin mid wax ku qoran yihiin innaa kunnaa nastansikh annagaa tirtirayna miyaa mase waa annagaa qoraynay unsukh lii ii qor miyaa mase waa ii tirtir afka qur-aanku naskhi wuxuu u yaqaanaa sugid iyo qoris aayadda maa nansakh min aayatin aw nunsihaa ka hadlaysana waa aayad aan sugnay iyo mid aan ku hilmaansiinay. alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ama bacd. su-aasha labaad, naskhiga yacnaa luuqatulcarabiya xaggiisa haddii la aado laba macno ayuu keenaa. midda koowaada waxay tahay waa shay meeshii wax laga wareejiyey amba laga guuriyey. tusaalaheedii haddii aan ku siiyan waxay tahay kitaabkan ayaan wax ka soo guuriyey, kitaabkan kale ayaan ku soo guuriyey. arrinkaasi waa la yidhahdaa naskhi. waxaa kaloo la yidhaahdaa arraf, in shaygii meeshii laga rafciyey. tusaale haddii aan kaa siiyo, nasakhat ishamsu adillu, qoraxdu waxay nasakday oo baabi'isay hooskii, yacnaa way baabi'isay. naskhi isdilaac ahaan haddii aan kula aadane waa isaal, zuulid wax xukum sharcigood jiray in meeshii laga zuuliyey ee wax kale la yimid. qur-aankana naskhiga aad ayuu ugu jiraa. waxaa ka mid ah in macnaha ay sugan tahay mid qoraalkii ayaa qoran laakiin waxaa la nasakhay xukumkii. tusaale ahaan aayadda wasiyada ka hadlaysa aqaaribta, iyo aayadda ka hadlaysa cadadulwafaad, iyo aayadda ka hadlaysa takhfiifu fi lqitaal, dhammaantood way qoran yihiin laakiin waxaa la nasakhay xukumkii ayaa la nasakhay. waxaa kaloo ka mid ah in la nasakho yacnaa la baabi'iyo masxaf amba qalbiyada dadka laga baabi'iyo. sida saxaabiga uu noo warinaya kama ruwiya can umaama binu sahal, wuxuu yidhi qowm saxaabada ka mid a radia allahu canhu ayaa habeen istaageen, waxay rabeen inay akhrisadaan suurad akhrisadaan, ma aysan soo xasuusan ilaa bismi illaahi araxmaani araxiim. subixii waxay usoo kaleheen nabiga calayhi salaatu wasalaam, arrinkii ayay u qabreen oo u sheegeen. waxay ku dhaheen rasuul ilaahayow, xalayt waxaan damacnaa inaan suuradda akhrino waan weynay. markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, suuraddaasi waa la rafciyey tilaawadeeda iyo axkaamkeeda, xukumkeeda iyo tilaawadeeda labada waa la rafciyey. naskhigu haddaba ma galo ogow ilaa axkaam mooyaane. axkaam waxa la rafcinayo amba la khafiifinayo waa axkaam. naskhigu ma galo, akhbaar ma galo, yacnaa akhbaaru lambiyaa ma galo. waa madhab jamhuur ahlucilmi ay wada qabaan. cid kale ma aysan inkirin ilaa daa'ifo dib dhacda mooyaane oo ku nasab sheegatay islaamka. ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aankiisu ku sheegay, maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minhaa aw mithlihaa alam taclam anna allaha calaa kulli shay'in qadiir. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى.